السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. habeenimo wanaagsan akhyaartana daawanaysaa meel kastoo ka joogtaan daafaha caalamka ku soo dhawaada war waxaan caawidi ka haynaa caalamka xiisado siyaasadeed oo weyn oo ku saabsan Greenland midowga Yurub oo ka jawaabay hanjabadaha Mareykanka iyo sicir korar dahabka oo suuqyada caalamka ah iyo wararka Soomaalida iyo qaaradda Afrikaba ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku xidhay tartanka uu ku doonayo Nobel Prize Peace sheegashooyin la xidhiidha go'aankiisa ku aadan Greenland isla markaana uu ku hanjabay inuu saaro cashuuro lagu beegsanayo wadamada Yurub haddii aan loo ogolaanin in Mareykanku iibsado jasiiradda taasoo keentay walaac diblomaasi iyo suuqyada caalamka. sidoo kale qaar ka mid ah ciidamada Mareykanka ayaa la faray inay diyaar u noqdaan in la geeyo gobolka Minnesota si loo taageero fulinta sharciyada socdaalka haddii la adeegsado xeerka insurance. sidoo kale ciidamada Mareykanka ayaa dilay hogaamiye dagaalyahan ICIS ah oo lagu eedeeyay inuu ku lug lahaa weeraro ka dhacay Syria. sidoo kale wararka midowga Yurub ayaa qorsheynaya shir degdeg ah si loo falanqeeyo tallaabooyinka lagu jawaabi karo hanjabaadaha cashuur ee Trump ku eedeeyay wadamada haddii aan la sii wadin wadaxaajoodka ku saabsan Greenland. sidoo kale tareen ku sii jeeday Spain ayaa dhacay maanta waxaana ku geeriyooday ugu yaraan 39 qof iyadoo boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen. doorashada madaxtinimada Portugal ayaa galaysa wareegii labaad maalinta February 8 kadib markii aan hal musharax ku guuleysan wareegii koowaad. wararka Afrika qiimaha dahabka ayaa kor u kacay wadamada maalgashada ayaa raadinaya hantida amniga ah iyadoo laga cabsi qabo saameynta siyaasadeed ee xiisadaha Greenland. waxaa tan ka faa'iideysan kara dalalka Afrika ee soo saara dahabka. sidoo kale Getin South Africa waxaa maanta ka dhacay shil baabuur oo ay ku dhinteen ugu yaraan 13 qof. wararka naga soo gaarayay Somaliland falaqayn warbixin maanta ka soo baxday waxaa lagu sheegay in Somaliland ay door muhiim ah ka ciyaari karto ammaanka iyo ganacsiga gobolka iyadoo laga yaabo inay noqoto madal cusub oo la tartanta Djibouti iyo dalalka dariska ah taasoo bedelaysa awoodaha geeska Afrika. sidoo kale weli waxaan lahayn madaxweynihii Somaliland meel taan iyo cirib dhigay. madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo ka yaabiyay caalamkii iyo Afrikaba weli alaanka waxa la garanayay meel uu tagay. madaxweynaha oo ah diblomaasi aan la fahmin xagga u socdo oo quyar socdo ah ayay ku jahwareertay Soomaaliya iyo Afrika oo maanta idaacadda Itoobiya sheegaysay. sidoo kale wararka naga soo gaaraya Soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa maanta Muqdisho ku qaabilay safiirka Suudaan iyadoo labada dal ay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa iskaashiga madaxbannaanida midnimada iyo garabka siyaasadeed iyadoo aan ognahay Soomaaliya inaysan maamulin magaalada Muqdisho gudaheeda midnimada laga shaqeynaya talo waxgii. sidoo kale dawladda Djibouti oo ka joojisay 1400 oo baasaboor dadkii haystay oo ka soo jeeday Somaliland. Djibouti oo xaalad xun baraysa gobollo ka midna ay haystaan cafartii xaaladeedana iyo wararkeedana aanay soo tabinay saxaafad gudaha ah ayaa waxay ka xanaaqday wararka ka soo baxaya Somaliland maadaama iyadu lahayn saxafiyiin xora amba saxaafad xora oo ku jirta gudaha Djibouti. marka baleer daawad waxay noo falaqaynaysaa xibkeena. Djibouti caawa waxay baasaboorka ka celisay 1400 qof oo reer Somaliland oo baasaboorka Djibouti sitay. waxay ka dhigan tahay dadkii reer Somaliland ee baasaboorka sitay Djibouti way kala wada noqotay baasabooradii. Djibouti Somaliland waxaan u sheegayaa xukuumadda qof kasta oo baasaboorka Djibouti ku dhoofaya waa basaas. maadaama dadkii reer Somaliland ha shacibka ahaa jamhuuriyadda Djibouti kala noqotay baasaboorradii waxa ay cadaynaysaa qofka reer Somaliland u dhashay ama xil ha hayo ama yaanu haynin inay baasaboorka Djibouti sitaa
وبصاص هلا قبطو يدا عديسي وايو عرورتي ويوينكي وداددي علمادي يا شعب كي سيتي اير سومالنا باسبوركا سيتي جيبوتي وي كلا نقطه باسبوركي habeenimo wanaagsan akhyaarta daawanaysa meel kastoo ka joogtaan dafaaca caalamka war waxaan idin haynaa waan laga intaa tan iyo intan dib u kulmayno habeen wanaagsan baalka hoos buu dhacay kor u qaada habeenimo habeen kadib siduu sii dhacaya like iyo share si comment qof walba nin walba kala sii gaarsii waa idin salaamayna bye